Assalaamu calaykum. Gabadhan yar waxaa lagu magacaabaa Kirsty. Waxay dhalatay 7 Abriil sanadkii 1970, waxayna ku dhalatay gobolka Illinois ee cariga Maraykanka. Waxay halkaa kula noolayd hooyadeed iyo 3 walaalaheeda oo ay 2 gabdho yihiin. Magaalada ay gabadhani ku noolayd waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu nabdoon deegaankeeda. Kirstyna inta badan waxay jeclayd inay waqti ku qaadato bannaanka. Waxay saacado badan la qaadan jirtay asxaabteeda, iyagoo wareegaya waddooyinka degmada iyo dugsiga dhexdiisa. Kirsty waxay ahayd gabadh yar oo firfircoon, deegaankeedana laga jecel yahay. Waxay ka qayb qaadan jirtay hawlaha iskuulka. Sannadii 1985, Kirsty oo 15 jirsatay waxay ka qayb qaadatay fasalada xagaaga ee dugsigeeda. Waqtigeeda firaaqada ahna waxay ciyaari jirtay kubbadaha loo yaqaano volleyball-ka iyo softball-ka. 21 Julaay ee isla sanadka, Kirsty waxay abbaara 3dii galabnimo ka soo laabatay iskuulka iyadoo ku wajahan guriga. Isla daqiiqada kadibna waxay go'aansatay inay lug ku aado dukaanka xaafadda si ay u soo iibsato sharaab soodha leh iyo shukulaato. Hooyada Kirstyna waxay filaysay inay dhowr daqiiqo gudahood ku soo laaban doonto, maadaama oo aanu dukaanka iyo xaafaddu aanay waxba kala fogeyn. Laakiin markii waqtigii iskuray, Kirstyna aanay weli soo laaban. Hooyadii waxay dareentay inay wax khaldan yihiin. Inkastoo ay markii hore istiri waxay la joogtaa asxaabteedii, haddana may awoodin inay la xidhiidho maadaama oo aanay waqtigaa jirin taleefanada gacantu. Waxaana hooyadeed u furneyd hal doorasho oo keliya, taasoo ahayd inay sugto. Habeennimadii markii gabalkii dhacay, warwarkii hooyadu wuu sii kordhay. Waxayna u wardoon tagtay asxaabtii Kirsty, laakiin nasiib darro wax natiijo ah kamay soo helin. Qoyskii Kirstyna waxay habeenkaas oo dhan ku qaateen raadinteeda. Goorsheegtu markii ahayd 1dii habeennimo, hooyadii waxay go'aansatay inay la xidhiidho booliiska, una sheegto maqnaanshiyaha inanteeda. Booliiskii ayaa si degdega uga qayb qaatay raadinta Kirsty, waxayna bilaabeen inay dib u eegaan dhaqdhaqaaqyadeedii ugu dambeeyey. Qacdii horeba waxay u tageen ninkii ka shaqaynayay dukaanka. Ninkani Kirsty wuxuu yaqaanay ilaa iyo yaraanteedii, wuxuuna xaqiijiyey dukaanka inay timi abbaara 4tii galabnimo, kana iibsatay sharaab soodha leh iyo shukulaato. Boolisku sidoo kale waxay wareysteen dadkii ka agdhowaa waqtiga goobta. Nasiib darro, laakiin ma jirin cid aragtay meel ay aaday Kirsty. Booliskii waxay sii xoojiyeen baadhistoodii, waxayna si buuxda u hawlgeliyeen wax kasta oo ka caawinaya baadhistooda. Inkastoo ay dadaal badan sameeyeenna wax natiijo ah may gaadhin, maadaama oo waqtigu ahaa goor habeena. Baadhistiina waxay socotay ilaa iyo waaberigii. Subaxnimadiina shaqada waxaa la wareegay koox cusub oo baadhayaala. Aan kaa dabageeya waxaa jiray dhul bannaan oo caws dhaadheer leh una dhexeeya xaafadda Kirsty iyo dukaanka. Marka aad ka soo baxdo xaafadda Kirsty, haddii aad marto cawska hareerihiisa, waqti badan ayay kugu qaadanaysaa inaad gaadho dukaanka. Laakiin waxaa jira dariiq yar oo cidhiidhi ah oo ku dhex yaala cawska. Sarkaalkiina wuxuu go'aansaday inuu raaco dariiqan. Wax yarba muu socon markii uu arkay meydka qof bini'aadan ah. Markii uu si dhow u eegana wuxuu arkay inuu yahay meydkii Kirsty, wuxuuna si degdeg u wacay ambalaasta. Waxaana meydkii lagu wareejiyey kooxaha caafimaadka si loogu sameeyo dheeraada. Goobtii dambigu ka dhacayna waxaa si taxaddar leh u baadhay dambiilayaashii, iyagoo raadinaya cadeymo kasta oo faa'iido u leh kayskan. Laakiin nasiib darro, baadhitaankoodii wax natiijo ah kamay keenin. Lama helin raadad lugo ah, agab shakhsiyeed, ama wax kale oo tilmaami kara gacan ku dhiiglaha. Dhanka kale, kooxdii meydka baadhaysay waxay sheegeen in Kirsty uu dhimatay mindi la geliyey 8 jeer. Sidoo kale waxay heleen cadeymo muujinaya in la kufsaday gabadha yar, waxaana halkaa laga helay DNA-da dambiilaha. Daawada, markaad maqasho DNA-da waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya in kiiska la xalliyey, maadaama oo la helay DNA-dii dambiilaha. Laakiin ku darso, sanadku waa 1985. Baadhista DNA-duna waxay ahayd weli heer bilow ah oo aan loo isticmaali karin baadhista dembiyada. DNA-dii meydka laga helayna waa la kaydiyey si loo adeegsado mustaqbalka. Dhanka kale, hooyadii Kirsty waxay siisay booliiska xog cajiib ah, taasoo ah inay Kirsty xidhnayd fargal yar oo xagga sare caag ka ah. Laakiin boolisku markii ay baadhayeen meydka kamay helin wax fargala, sidoo kale kamay helin goobtii dembigu ka dhacay. Sidaa darteed, baadhayaashu waxay sheegeen inay dhici karto inuu dembiiluhu qaatay fargalka, laakiin weli may helin wax raada oo muujinaya ama lagu ogaan karo dembiilaha geystay falkan foosha xun. Booliskiina waxay bilaabeen baadhitaano ku saabsan dhammaan raggii yaqaanay Kirsty. Sidoo kale waxay diyaariyeen liiska ragga deegaankan ku nool ee hore loogu helay dembiyada. Laakiin dadaal kasta oo ay sameeyeen wuxuu ku soo dhammaaday bilaa natiijo. waxba yaanan hadal kugu daalina daawade. Kiiskii muddo dhowr sano ah xal looma helin ilaa laga gaadhay sannadii 1988, xilligaasoo uu dhacay horumar dhanka DNA-da. Baadhayaashina waxay bilaabeen inay muunado DNA ka qaadaan dadkii hore looga shakiyey, laakiin muunadaha midkoodna mu waafaqin muunadii hore ee laga helay meydkii Kirsty. Sanadkii xigay, iyadoo kiiskii aan wax xala loo hayn, nin lagu magacaabo Willis oo muddo dheer qoyska Kirsty xog ka siinayay kiiskan, ayaa garsoorihii degmadu amar ku bixiyey in laga joojiyo warqadaha uu u dirayo qoysku
Boolisku waxay sheegeen in muddo 4 sano ninkani xog ka siinayay kiiskan. Xog kasta oo uu bixiyaana waxay noqotay mid aan shaqo iyo shuqul toona ku lahayn kiiskan. Ilaa markii dambe boolisku ka shakiyeen ninkii, dabagalna ku sameeyeen, laakiin way ku hungoobeen oo waxba kumay helin. Waqtigu wuxuu isku raba sanadkii 2000, muunadii DNA-ga ee laga helay dambiilaha ayaa lagu shubay database-ka FBI-da, balse mustaqbalka wax xal ah loogu helo. Kiiskiina waxaa loo diiwaan geliyey kiis qabow ama cold case. Saraakiishii kiiska gacanta ku hayay waxna way dhinteen waxna way howlgabeen. Sanadkii 2015 FBI-da ayaa sii daysay war farxad leh. Warkaas oo sheegaya DNA-gii laga helay Christie in uu waafaqay muunad cusub oo la diiwaan geliyey. Muunadana waxaa iska lahaa 62 jir lagu magacaabo Michael Jones, kaasoo deganaa magaalo yar oo la yidhaahdo Campaign, oo qiyaastii u jirtay 150 mayl halkii laga helay meydka Christie. Odaygan in la xidho waxaa ka dambeysay xaaskiisa, kadib markii ay ku eedeysay inuu rabshado ka sameeyey guriga, siduu dhigayo sharciga gobolka Illinois ee laga ansixiyey 2002, kaasoo ah qof kasta oo la xidho in laga qaado DNA laguna kaydiyo database-ka. Isla markii la diiwaan geliyey DNA-dii Jones, waxay is waafaqeen DNA-dii laga helay meydkii Christie, waxaana xusid mudan magacan Michael Jones muddadii dheereed ee la baarayay kiiskan inaan mar qura lagu soo darin tuhmanayaasha. Ugu dambeyn, Michael wuxuu go'aansaday inuu qirto dembigiisa. Garsoorihii maxkamadduna wuxuu ku xukumay 80 sano, taasoo ay micnaheedu tahay inuu ku dhiman doono jeelka. Haddaba daawada waxaynu soo gaadhnay gabagabada sheekadeenna, ee fadlan fikirkaaga commentiga nagula wadaag, muuqaalkana like saar.